وبركاته كلها وزيرada dowladda Puntland xildhibaanada dowladda Puntland golaha deegaanka uu kala joogo gudoomiye ku-xigeenkii degmada nabadoonnada iyo caaqilada culimada miyii hore ee gudoonka doorashada dowladda federaalka ah Muuse Geele boorka jaamacadda halwadanada jaamacadaha magaalada ay ugu horeyso haddana la joogto jaamacadda East Africa Professor Salwe ardayda jaamacadda saxaafadda dhammaan marti sharafka qiimaha leh ee xafladan ka soo qayb galay salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh salaan kadib waxaa sharaf weyn noo ah inaan nagala soo qayb gashaan furitaanka kuliyadda cilmiga badda oo lagu soo kordhiyay jaamacadda waxaa ka duuleynaa marka barnaamijkaas oo dawladdu ay ka dhigatay halbeeg oo ahaa dalka in lagu jahayo wax soo saarka dalka kaasuna barnaamijkaana kaas uu qayb ka yahay oo aan rabnaa inaan qaybteeda ka qaadano maadaama aan meel wax soo saarnahay waxaa nooga horeeyay oo shaqada hore u waday jaamacadda East Africa annaguna waxaan noqonaynaa jaamacaddii labaad oo ku soo biirta oo barnaamijka qayb ka ah waxaan aad ugu mahadnaqayaa wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda oo runtii isagana ay ka go'an tahay barnaamijkan in laga miro dhaliyo oo runtii annaga naftarkayaga markaa aragnay sida ay shaqada hayaan iyo qaabka u shaqaynaya energy-na gelisay oo inaan ku dhiirano barnaamijkan qayb weyn ka ahaa annagoo siyaasadda iyo manhajka iyo hagidda raacayna wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda waxaan halkan hortiina maanta kaga dhawaaqaynaa inaan kuliyaddaas oo inoo furi doono wasiirka kalluumaysigu inaanu soo kordhinay idinkuna markhaati ka noqotaan insha Allah kuna soo biirtaan barnaamijkan marka suu ku yimi haddii aan wax yar ka hadlo barnaamijkan wuxuu ku yimi hamiga jaamacadda oo qayb ka ahaa in barnaamijkaas la keeno isaga iyo xanaanada xoolaha iyo beeraha waxaa door weyn oo maartay xil weyn iska saaray gudoonka boorka jaamacadda Ustaad Cabdulqaadir Axmed Tuube oo barnaamijkan u waqaf ahaan uu maartay isagu u bixiyay oo barnaamijkan waa barnaamij maartay waqafa oo ardayda aan laga qaadayn wax fii ah haba yaraatee wix allaala wixii ku baxay oo kharashana waxaa xilkaas qaatay oo yiri waxaan rabnaa inay soo baxaan dad akaadiira oo cilmiga baddana yaqaana kalluumaysiga yaqaana oo shaqaysan kara aad buu u mahadsan yahay gudoomiyaha boorka Ustaad Cabdulqaadir runtii annagoo ka maamul ahaan iyo ka howlwadanada jaamacadda oo ugu mahadnaqaynaa waxaan leenahay mahadaha ka gaarto ilaahayna ajar iyo xasanada ka siiyo idinkana waxaan rajaynayaa inaad saas ugu ducaysaan ilaahay waqafkiisa u aqbalo oo ilaahay jannada uga dhigo maaragtay abaalgud uga dhigo waxaa naga go'an ka siyaasad ahaan ka jaamacad ahaan waxaa naga go'an inaanu cilmiga barashada kalluumaysiga iyo badda inaanu si dhab ah u galno kana qabanno shaqo xoog leh ka qabanno oo runtii aanu soo saarno dad akaadiira oo cilmigii badda yaqaana kalluumaysan karana problemka ugu weyn wuxuu noqday dad badan baa jira waddanka ku nool ama si kale yiraahdo waxaa jira arday fara badan oo jaamacadaha ka baxay oo wali aan shaqayn ciladaha ugu weyn markaan baarnay waxay ahayd ardada laba ciladood ba haystay ardaygu markuu jaamacadda ka baxo xirfad ma leh waa suuragal soo bila xirfada inuu dhameeyo ka baxo jaamacadda ka baxo cilada labaad ee haystana waxay ahayd luqadda Ingiriiska oo dib ku ahayd labada barnaamij markaan aragnay inuu maaragtay barnaamij caqabada jira yahay labadaba way xoogaa saarnay waxaan rajaynayaa insha Allah inaan maaragtay kana mid dhalino haddii Ilaahay yiraahdo